halkan waa galwareed meediya kuna soo dhawaada qodobada aan saaka idinkugu hayo warka subax Axmed Madoobe oo awood kula wareegay guud ahaan magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland taliyaha AMISOM oo xogta lagu helayo in loo diiday gudaha magaalada Kismaayo dawladda Soomaaliya oo xog ka bixinaysa inta uu leeyahay khayraadka dhex eegaaga badda Soomaaliya wasiirka amniga oo si kulul uga hadlay ka saarista al-shabaab ee deegaanada Galmudug odayaal dhaqameed qaatay amarka al-shabaab oo loo diiday inay balad xaawo ku laabtaan faahfaahin ka soo baxaya dagaal xalay degmada Qoryoole ee shabeellada hoose ku dhex maray al-shabaab iyo askarta xoogga dalka iyo rabshado ka socda dalka Cameroon hagaag daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka subax ee galwareed meediya xasuusin waxa naga ah in intiina naga cusub aad turkumataan halkan si aad u heshaan wararkii ugu dambeeyay kale waxaad booqan kartaan website-keena galwareed.com markana warkii oo faahfaahsan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha sanadaha badan soo maamulayay maamulka Jubbaland isla markaana haatan doonaya in dib loo doorto birina leh rajada ugu badan ee doorashadiisa ayaa wuxuu awood kula wareegay guud ahaan magaalada Kismaayo xarunta Jubbaland falanqeeyaasha siyaasadeed waxa amarka soo baxay guddiga amniga ee Jubbaland ay ku micnaynayaan in uu ka dambeeyo Axmed Madoobe amarkaasi wuxuu ahaa waxaa soo baxay in guud ahaan magaalada Kismaayo meel kasta laga soo gali lahaa hadii ay ahaan lahayd hawada ee duulimaadyada gaadiidka dhulka mara ee soo mara baraha control ee magaalada Kismaayo laga galo iyo sidoo kale badaba ay tahay guud ahaan mid xiran oo aysan jirin wax dhaqdhaqaaqa bandow ayaana xalay ka dhaqan galay magaalada Kismaayo saakayna magaalada waa mid kale xirxiran musharaxiinta xitaa kuwii ka soo horjeeday Axmed Madoobe ee waayihii u dambeeyay dhaqdhaqaaqay ayaan maanta loo ogoleyn wax dhaqdhaqaaq ah waxa sidoo kale hakad la geliyay isku socodkii gaadiidka dadweynaha ee gudaha magaalada Kismaayo waxa amar lagu bixiyay in ciidamada booliiska AMISOM iyo sidoo kale kuwa Jubbaland oo kaliya ay yihiin kuwa magaalada Kismaayo dhex socon kara ilaa ay ka dhamaato doorashada taariikhduna ay ku asaysan tahay 23 bishan oo ku beegan maalinta Jimcaha taariikhdu maanta waa 22 birrito waa 22 oo khamiis ah waxa lagu wadaa inay dhacdo doorashada madaxweyne ee Jubbaland ee Axmed Madoobe dib loogu dooranayo waxa Axmed Madoobe kula tartamaya ilaa 3 musharax kale oo la rumaysan yahay inuu isagu keensaday oo uu ka dambeeyo musharaxiintaas mid waa haweeney oo canab ayaa la yiraahdaa sida warkeeni xalay intii nala socotay baan idin kugu faahfaahinay Axmed Madoobe sidoo kale waxa la sheegayaa in ciidankan oo waa hore diyaarsaday isla markaana daafaha magaalada ay ugu diyaarsan yihiin ciidamo kale oo dheeraad ah oo ka tirsan taraawishta Jubbaland kuwaasi oo uu amarku siinayo hadii uu dareemo wax khalkhal ah in doorashada si kale loo faragelinayo gudaha magaalada galaan xogta waxa laga helayaa daawadayaal xubno ku sugan madaxtooyada Jubbaland waxa sidoo kale la sheegayaa in taliyaha ciidamada Ethiopia ee AMISOM loo diiday in uu magaalada Kismaayo galo qorshaha taliyaha howlgalka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya Tigabo Yilma oo ku tagi lahaa magaalada Kismaayo ayaa fashilmay kadib markii maamulka Jubbaland uu sheegay inuusan imaan karin magaalada Tigabo ayaa la filayay inuu shalay Kismaayo tago hase yeeshee wuxuu dib u dhacay maanta oo Arbaca waxa safarkiisa saameeyay amarkii xalay ka soo baxay maamulka Jubbaland ee lagu xiray xuduudaha magaalada Kismaayo ilaa 23 bishan oo ah maalinta doorashada kadib ee madaxweynaha Jubbaland la dooranayo ila wareejin lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale warbaahinta qaar waxay u sheegeen in Tigabo uu goostay diyaarad ay leedahay qaramada midoobay qorshuhu ahaa inay Muqdisho ka baxdo 7 subaxnimo hase yeeshee waxa isaga iyo xafiiska qaramada midoobay Soomaaliya lagu wargeliyay inay raacaan amarka lagu xiray xuduudaha dhulka cirka iyo badda ee Kismaayana musharaxiinta qaar oo aan la hadalnay oo kuwa isbeddeldoonka waxay leeyihiin awood ayuu kula wareegay Axmed Madoobe guud ahaan magaalada oo ma jiro dhaqdhaqaaq la sameyn karo marka laga tago isaga iyo inta taageersan waxa laga dhowr sugayaa natiijada bari ka dhalan karta doorashada lagu wado inay ka dhacdo magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland dawladda Soomaaliya inay xog ka bixinayso inta uu leeyahay khayraadka badda ayaan eegi doonaa saacada waxaan ku hormarayaa wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaw Ducaale waxa uu shalay xero ciidan oo ku taal magaalada Gurceel kula hadlay warfaafinta iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya askar tababar loo furayay si kulul ayuu wasiirku uga hadlay dagaalka lagu jiro al-shabaab ee deegaanada Galmudug la doonayo in looga xoreeyo maanta farxada ay tahay in aad imaado aan soo boqo xeradan har qaboobe aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan idin leeyahay guuleysta sidoo kale waxaad ogaataan qofka bini aadanka wuxuu u hibeeyo ama u baxsho waxa ugu muhiimsan nafta way naftiina soo qadinteen waxaan u soo qadinteen naftiina inaad la dagaalantaan qawaariijta
marka waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin. waxaan kaloo rabaa halkaa inaan ugu mahadceliyo macallimiintiina dugsiga Harqaboobe oo hore habeen u taagan inay tababar idin siiyaan iyo sida ugu dhagoonaysiin aadan ugu faraxsanahay. waxaa ogaataan intiina halka ku jirto way yartahay 2 qof oo walaal meeshan ay ku jiraan. waxay isugu timaadeen Soomaalinimo, waxay isugu timaadeen in cadow qoriishta aad ka sifaysaan deegaanada Galmudug sidoo kale wadankoo dhan. diyaar ma tihiin qoriishta laga sifeeyo? diyaar ma tihiin? insha Allah balanteena waa saas. aadan ugu faraxsanahay gabdhaha iyo dhalinyarada halkan horteeda ka muuqdo. rag dhalinyaro tihiin, gabdho yar tihiin, mustaqbal aad leedihiin. qof walba waxa ogaataa meeshan uu ka soo bilaw. saraakiisha hadda ila socoto qaar ka mid dugsiga aan tababar ugu bixin, haddana qaar waa janan, qaarna waa korneelo, qaarna meel bay haystaan. marka ogaada dadaalaha waa gaari doonaa. waxaan la rabaa inaad dadaalka halka sii wadaan, cadowgan gacan bir ku qabataan. anagana ka xukuumad ahaan waxaan diyaar nilanahay wax kasta oo u baahan tihiin inaan nila garab istaagno haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala waana idin soo booqo doonaa inta badan. inta ugu gudubna wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale markan dawladda Soomaaliya waxay xog ka bixinaysaa inta uu leeyahay kheyraadka dhexeegaga badda Soomaaliya. waxaa Muqdisho ka socda oo haatanba ka socda oo shalay furmay shir u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda wasaaradda waa kalluumaysiga iyo kheyraadka badda iyo sidoo kale hay'adda qaramada midoobay ee FAO la yiraahdo ee cunnada adduunka. waxaa shirkaasi looga hadlayaa ama dawladda Soomaaliya ay ku soo bandhigaysaa xogta inta ay leegtahay kheyraadka oo dhexeegaga badda Soomaaliya. waxaana ka hadlay wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda. magaalada Muqdisho ka furmay waxa uu ku saabsan yahay qaabka ugu habboon ee loo heli karo xog midaysan oo ku saabsan kheyraadka badda Soomaaliya iyo dabcan sidii la isugu keeni lahaa iyadoo la adeegsanayo qaab tiknoolajiyeysan oo ah in goobaha kalluunka noocyadiisa kala duwan ka soo dego maxaa la yiraahdaa la geeyo systems loogu talagalay in daatada lagu soo aruuriyo daatada oo si wada jir ah wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda ee Soomaaliya heer federaal iyo wasaaradaha kalluumaysiga ee dawlad goboleedyada Soomaaliya ay si wada jir ah uga qayb qaadanayaan. insha Allah ta'ala shirkan wuxuu socon doonaa muddo 2 maalmood ah, maanta iyo bari ayuu soconayaa. odayaal dhaqameed ayaa qaatay amarkii al-shabaab ee ku aadanaa in ay tagaan xarumaha al-shabaab ay ka taliyaan si loo cafiyo isla markaana loo diiwaan geliyo. amarkan oo soo baxay bishii hore ayaa al-shabaab waxaa dhaqan geliyay qaar ka tirsan odayaasha dhaqanka qaarkood waxay ka baxeen deegaanada kala duwan ee maamul goboleedyada dalka. balad xaawo oo gobolka Gedo ka tirsan odayaal ayaa ka baxay. hase ahaatee markii ay magaalada ku laabteen ayaa loo diiday inay gudaha magaalada ku laabtaan oo ay magaalada galaan. mas'uuliyiinta magaalada balad xaawo oo la xiriirnay waxay galwareed media u sheegeen in ay odayaashan gabi ahaanba magaalada laga rookeeyo oo aysan soo gali karin isla markaana ku xukuman yihiin in xabsiga la dhigo ama ay al-shabaab la noolaadaan. dagaalna xalay ayuu ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Qoryooley. waxaa wararkii ugu dambeeyay ay sheegeen in dagaalka al-shabaab oo ku qaaday xero ay ku leeyihiin militariga Soomaaliya halkaasi jab weyn lagu geystay. saraakiisha ciidanka xoogga dalka waxay sheegeen in dhowr ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay halkaasi ku dileen. muddooyinkii u dambeeyay dhaqdhaqaaqyada militari ayaa kuwa aad uga soconayay gobolka Shabeellada Hoose. ugu dambeyntiina markaan daan eegno dhaqdhaqaaqyo xoogan iyo rabshado gacan ka hadal ay qayb ka yihiin ayaa ka soconay dalka Cameroon maanta jawigeedu uu qasan yahay gabi ahaanba. goobo ganacsi oo badan ayaa la xiray, isbitaaladii wuu saameeyay, iskuuladana waa haba sheegin. waxaana lagu soo warramayaa in jidadkii waaweynaa dhagxaan la dhigay, qaarkoodna taayiro lagu gubayo. sababtuna waxa ay tahay hogaamiyaha kooxda mayalka adag ee dalkaasi Cameroon ayaa dhawaan xabsiga la dhigay, xarigiisa ayaana la diidan yahay. guud ahaan warkeennii subax waana intaas.